xogayihii hore xisbiga UCID Axmed Xirsi Ducaale oo horey iskaga casilay xisbiga mucaaridka ee UCID ayaa maanta shaaciyay inuu ku biiray xisbiga wadani. Xogayihii hore oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi siyaasadda Soomaaliland iyo mustaqbalkeeda Soomaalidu waxay tiraahdaa ninka aan garan waxa soo socda waxa jooga ma garto. xisbiga wadani waxa weeye hoggaanka soo socda ee ummadda reer Soomaaliland ee bedeli doona hoggaanka maanta jooga. sidaa darteed waxaan doonayaa inaan ku caddeeyo halkan anigoo dhigan doona xaflad ka mid ah maanta Sheikh Ahmed ayaa ku sharfaya iyo hoggaanka xisbiga oo runtii aad iyo aad ii soo dhaweeyay. waxaan doonayaa inaan halka caddeeyo inaan doonayo inaan u soo guuray xisbiga wadani laga bilaabo maanta haddii ilaahay ka dhigo. waxaan ahaa musharax golaha wakiilada ah. waxaan u tanaasulay si aan siyaasadayda haruun u dhaqaajiyo. waxaan u tanaasulay nin aanu iskuqaysnahay waxaana keenay xisbiga wadani. waxaan ahaan jiray oo ku soo bilaabay siyaasadda guddoomiyaha ololaha xisbiga intaan xogeeyo guul noqon. waxaan aqaanaa qaabka ololaha. waxaan badan qaadayaa haddii ilaahay nafta daayo Sheikh Axmed iyo ninka aan keenay iyo cabdikariin axmed mooge iyo ragga iyo barxad iyo ragga khiyaarka ee sharaxan hadday tahay baarlamaan iyo hadday degaan tahayba inaan kaga qayb qaadan doono inaan noqdo maxaan ku dhahdaa hoggaamiyaha ololaha ee lixda gobol ee Somaliland. taas baa insha allahu tacaala ugu kala qaadaya aana soo saari doono. talabaad waxa weeye siyaasadda Somaliland oo maanta markaan eegay xisbiga UCID waa xisbigayga waxba ka odhan maayo waan ka soo baxay oo anaa wax ka dhistay raggaygii baa jooga oo shalay waan ahaa. waxaan eegay xisbiga wadani iyo xisbiga kulmiye. xisbiga kulmiye wuxuu maanta marayaa ruqaqaad af Soomaaliya reer miyiga ruqaqaad waxaa la yidhaahdaa marka neefku kaa dhacdo ee uu fadhiisto marba inta dhabarka laga qaadaa oo toosiyaa markaasuu cabaar socdaa dabeedna meel kaluu si gaadhaa ku dhacaa. xisbigii kulmiye wuxuu noqday ruqaqaad buu maanta marayaa. nin siyaasi ah oo doonaya mustaqbalka waxaan u malaynayaa inaanu ku sii socon. Axmed Ismaaciil Cabdi, telefishinka caalamiga ee RTN, Hargeysa.